في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى مهد ما أنت ديسكله وكلن كيني لباد قيبتا سؤالها وينوغ جوابيو شيخ محمد شيخ عمر درير ويديموه وحي كلمادين ددك مسلين تمساجك كنتو كذا iyo dadka ku xidhan baraha bulshada ee sheekha sida Facebookga, WhatsAppka, YouTubeka iyo meelaha la midka ah. cid kasta oo su'aal diini qabtaana goobahaas aan soo sheegay bay ku soo gudbin doonaan. si toos ah waxaynu isaga bilaabi doonaa su'aalaha fadiilada sheekh qaybta soonka iyo cibaadaadka ayaan ku horeyn doonaa. su'aasha ugu horeysa gabadhana waxay leedahay sheekh hooyaday oo muddo 2 sano u jiiftay xanuun jirka ah, hadda saladan welina aan kici karin, raashin ma ka bixin karnaa? labadii sano ee hore ee aanay soominna sidoo kale maxaa la yeelayaa? su'aasha labaad qofka soo qoray waxa uu leeyahay ayeeyday oo ku nool dalka Mareykanka ayaa xanuunsanaysa, mana soomi karto. qof ayaanay bisha Ramadaan afurisa oo ay afursiisaa, marka waxa uu leeyahay qofka ay afurka siinaysaa meel kale ma ka afuri karaa? tusaalahaan haddii casuumad loogu yeedho ama waxyaalaha midka mise keliya wuxuu cunayaa un wixii qofka miskiin waxa weeye afurinaya uu siinayo. su'aasha saddexaad waxa uu leeyahay sheekh bishan inta badan waxaanu bixinaa sakada, kolkaas sheekh qofku marka uu sakada bixinayo amaahdii ka maqnayd ee laga qoostay ma u niyoon karaa sako oo ma ka ansaxaysa ayuu leeyahay. su'aasha afraad waxa uu leeyahay sheekh haddii aan isweydiiyo sidee ayuu ilaahay wax u cadaabayaa, sidee ayuu wax u janaynayaa, dhimashada maxaa ka dambeeya? su'aalo noocaas haddii aan maskaxdeeda ku furo ma shirkiba, soonkaygiisa wax ma yeelayaa? su'aasha ugu dambaysa qaybtan waxa uu leeyahay qofka soo qoray sheekh waxa aan leeyahay xiiq, waxaan aan isticmaalaa dawada naqaska ee afka laga qaato, marka aniga oo sooman haddii aan naqasku i qabto ma isticmaali karaa? soonkaygiisa wax ma noqonayaa? الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سؤالها قفك بكاوي نقص نقنيا، لكن درس كان كي كور ربينا كجا جوابني قفك بكان كا إنه لبا قيبات نقنيا. marka horta uu iska afuraya sharciga u baneeyay sidoo Ilaahay ku sheegay suuratul Baqara aayadaha uu kaga warramaya soomka 2 jeer buu soo celiyay xagga hore iyo xagga dambe. qaybta dambe waxa uu waman kaana mariidan aw ala safarin fa'iddatun min ayaamin ukhra, qofkii ama socdaal ku jira ama buka ha iska cuno, ruqsad buu haystaa iyo fasax, hana soo qaleeyo. waa hadduu qaleyn karayo, haddaanu qaleyn karayninna raashin ha bixiyabayn. marka sanadihii hore iyo sanadaha dambe iyo kuwan imakaba dee wuxuu noo leeyahay qofkii ma qaleyn karaya mise ma qaleyn karaya. haddaanu qaleyn karayn raashinkaas uu bixinaya. su'aasha odhanaysa miskiin baan wax siiyaa maalin walba, marka hadduu meel kale wax ka cuno maalintaasi miyay ii jirtaa? dee mee kuma jirta, adiga kaama cunina dad kale u ka cunay, maalintaa dad kale uu casuuman yahay. marka hadduu isagu iska tago casuumad helay mid kale adigu casuun maalintaasi kuma tirsana way calaa kulli xaal. waxaana la doonayaa dee qof qurayna wixii la isugu geynine hadduu kani meelaysan yahay mid kaloon meelaysnayn wax la siiyo. waxaana lagu bixin karaa raashinka qoyaan iyo qalay labadaba lagu bixin karaa, oo raashin la karsado bariis daqiiq sidii kiisa kaad fidriga oo kale
kaana waa lagu bixin karaa 30 kiilo 25 kiilo gadbad intaba qofku ku bixin karaa sakada iyo deynta soo noqon weyday haddii deynta aad qofka aad ku leedahay aad sakada siinaysa sax maaha laakiin haddii uu yahay adiga hadday tahay taas uma imika ina khusaysee culimadu waxay leeyihin maya dheef adiga kugu soo noqonaysa wey qofkii deyn baad ku lahayd waad ka soo saari weyday waxaad leedahay waar iska tag sakadii baanu ku xisaabinay aduun bay kugu soo noqoto adiga ayuunbaa dheeftaa iska leh marka waad ismacaashsiisay adigoo miskiinkiisa iyo cunay oo kale dhinacaasay qola ka eegayaan qolana waxay ka eegayaan dee ilaahay wuxu uhi aqiimu salaata wa aatu zakaa sakada dhiiba baa layihi mabaa diibinba waxay ad adigu inaad qofkan u dhiibto umaa diibin way jiraan culimada qaar baneeyo le alibraa'u walicطaa'u humaa sawa inaad qofkii ka saamaxday iyo inaad siisaa waa isku mid oo waad jiidis iyo qaadis way jiraan qaar leh sida xalaal miirashada badani waxa weeye kana inaad ka raadsato kuwa kalena aad siiso sakada su-aalahan uu ninkani sheegay inuu isweydiiyo sidee buu ilaahay qofka u janaynaya muxuu cadaabayaa dembigan ilmaha yar maxaa loogu cadaabaya arrimahaas qofku kol haddii aanu afka ka odhanin ficilna samaynin ee wax uurka ku soo wareegaya ay tahay oo dee laabtiisa un kusoo noqnoqonaya shaydaanku buu iska naarayaa waswaaska shaydaanku iska naaraya wax dhibana male siduu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii sugnaa ina allaha tajaawaza liummatii cama xadaat bihi anfusuha calaa macna xadiid ilaahay ummaddayda wuxuu u dhaafay wixii nafteeda ay ugu sheekayso wuxuu qofku naftiisa ugu sheekeeyo bahasha bakhaakda la yidhaahdo iyo soomka waa oxygeentoo kale un qofku neefsanayo saa daraaddeed wax dhib a ma laha oo cuno iyo cabid looma tixgelinayo markaa hawadaa uu qofku isku furaya naqaska ka jaraysa markuu naqas ku dhegan yahay hadduu isku buufiyo balaayo ma laho soonka kama jebinayso wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilat sheekh qeybta labaad ee su-aalaha su-aasha ugu horeysa gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh aabbahay ayaa guriga nagula nool annaga oo qoys ah aabba ma tukado mana soomo si walbana waan ula hadalay marka ma ii bannaan tahay inaan anigu guriga uga guuro oo anigu aan meel kale dego aan iskaga taga ma ii bannaan tahay ayay leedahay su-aasha labaad wiil ayaa soo qoray su-aashaas hore ayay runtii u dhowdahay waxa uu leeyahay sheekh aabbahay waxa uu dhaqan ka dhigtay cayda ilaahay nebiga iyo diinta isaga ayaana biilkana siiya oo reerka biiliya kolkaa biilkaasi muxuu noqonayaa aanu cunaynaa buu leeyahay su-aasha saddexaad walaalka soo qoray waxa uu ka soo diray facebooka waxa uu leeyahay waxa aan ku noolahay magaalada addis ababa ee dalka etoobiya waxaana xabashida guryaha lihi dhaqan ay u leeyihiin in habeenkii ay albaabada xidhaan oo ay qufulaan taasina waxay iga hor istaagtaa in aan salaada subax masaajid kusoo tukado wax dembi ah miyaan ku leeyahay maadaama oo aanan awood u lahayn inaan baxo su-aasha afraad waxa uu leeyahay sheekh waxaa jira dad badan oo wakhtiyadan bisha ramadaan masaajidada dhexdooda ku isticmaala baraha bulshada sida facebook iyo waxyaabaha la midka ah marar badan iyagoo khayr ka daawanaya se wixii waa mareeg oo waxyaabo badan baa kaaga soo bixi kara adigoon ku talagelin markaa ramadaankii iyo masaajidkii wax ma yeelayaan su-aasha qaybtan ugu dambaysa waxa uu leeyahay sheekh nin iyo xaaskiisii ayaa waxay isku qabteen arrimo caafimaad ninkiina waxa uu ku yidhi gabadhii xaq iiguma lihid inaan dhakhtarku geeyo kolkaa sheekh caafimaadku miyuu ka mid yahay xuquuqda ay haweeneydu ku leedahay ninkeeda waa nasiib darro ku dhacday awlaadda waalidkoodu aanu tukanaynin ama soomaynin ama diinta iyo wacaayo waxyaabaha muqadasaadka ah nasiib darro weeye cid waliba laakiin door bay leedahay iyo kaalin ay qaadato isagu ma qasbi karo waa waalidkii laakiin wuxuu ku leeyahay talo iyo nasiixa dibqan liqowlihi tacaala isagoo aayadda ku camal falaya ilaahay uli subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara naftiina iyo ehelkiina naar ka nabadgeliya buu laayay wa min baab watacaawanuu cala albiri waataqwa waxa wanaagsanna isu kaashada buu ilaahay yidhi alla ka cabsiga marka waxaad isku dayaysaa xasba istiaacatik inta aad kari karayso inaad la taliso
waaniso dad wanaagsan ku xidho laakiin masruufka uu idin siiyo mar haddii aanu xaaraan ka soo shaqaynin isaga waa isticmaali kartaa waa cuni kartaa inantaad kale tiri waalidka miyaan uga guuraa gurigana maya ha uga guurin laakiin sidaa aynu sheegnay wixii aad siin karaysana sii nasiixadaa iyo taladaa wanaagsanna sii ilaa ilaahay wuxu uhi wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa dee xataa xagga diinta ku xuyin ama gaalba uu yahay la dhaqan wanaagsan u samee adduunyada lacala allaaha yahdiih waa laga yaabaa inuu ilaahay soo hanuuniyo laa tadrii lacala allaha yuxdiu bacda daalika amraa waaba laga yaaba waxaanaad filayn inuu ilaahay ka keeno markaa taladaasaynu raacin lahayn labadaa qofa waalidka ka cawday ninka sheegay in meel lagu qufulayoo aanu salaada subax u bixi karaynin marka hore ka tabaabushayso meelaan la qufulaynin tag haddii waddanku wada qufulan yahayna danibo way ku qasbi laakiin horta waxaad isku daydaa maadaama quudkii ruuxda iyo quudkii quluubta iyo xaqii ilaahay ay tahay cibaadada iyo jamcu meelaan qufulmaynin inaad tagto haddaad cibaadada u dadaalaysana waa laga yaabaa inaad hesho laakiin haddii ay suuroobi weydo taas macduur baad noqonaysaa mukrah baad noqonaysaa qof la dirqiyey oo loo diiday jamacii su-aasha kale ee odhanaysa facebooka iyo whatsappka iyo masjidka waxaa muhiimahun wixii xun inaanu qofku masjidka ku daawanin ama aanu ku baarhbaadhin wixii wanaagsan dee qofku ha ka faa'iidaysto haddii si kadisa waxumi uga soo horbaxana ha iska xidho dadkana yuu ka mashquulinin wax akhrisanaya ama tukanaya sanqadhiisa iyo muuqaalkiisa yuu ku mashquulinin laakiin maadaamuu yahay waxaan seef laba af leh dhinaca wanaagsan unu isticmaal su-aasha shanaad ee odhanaysa ooridu ninkeeda miyay xaq ugu leedahay inuu daaweeyo waa mas'alo khilaafiya bayna alfuqahaa culimmada qaarkood waxay leeyihin maya dharka dhuuniga guriga cunnada cabidda aaladaha isku nadiifinaysa waxaasay xaq ugu leedahay laakiin isdaaweynta maadaama qofkii doonaana uu isdaaweeyo qofkii doonaana xanuunkaba iska dugsado waajib uguma laha laakiin qayb ka mida fuqahada waxay leeyihiin maadaama ilaahay yihi wacaashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqma dee qofkii oo agtaada ka taahaya oo aad dhakhtarka geyn weyday wanaag kulamaa dhaqmin marka qowlkaa dambeaynu qaadanaynaaye wixii aan ka badbadis ahayn ee daruuri ah xaq bay ugu leedahay ooridu ninkeedu inuu ka daweeyo ka badbadiska waxaynu uga jeednaa iyadoo wax yar lagu daaweyn kara hadday tiraa dhakhtar heberun anigaygee mid qaaliyahoo taymistan ah 10 jeer labalaabmaya ama iyadoo gudaha lagu daaweyn kara iyo dhakhtarka agteeda hadday tiraa may inta hinaasto aniga mid dibaddaa baan rabaa oo $10,000 ah kan tag baa la leeyahay haddii kale halkaaga ka taa marka wixii aan dhib ahayn weeye qofka waa inaan la dhibin wixii xaq uu leeyna waa la siinaya isna waa inaanu ka badbadin wallahu aclam jazaaka allahu khayran qaybta ugu dambaysa su-aalaha su-aashan gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh waxaan dhigtaa qur-aanka waxaanan aad u necabahay runtii qur-aanku inuu iga kala go-o marka waxay leedahay marka aanan daahirka ahayn mobilka ayaan qur-aanka ka diyaariyaa oo aan kaga baxaa marka ma ii bannaan yahay mobilkaas inaan qur-aanka ka diyaarsado casharka iyo subciska labadaba inkastoo su-aasha hore inoo soo martay haddana waxay leedahay runtii nooc ilxaaxa su-aasha ku jiray su-aasha labaad waxa uu leeyahay saa'ilkan sheekh aabbahay iyo hooyaday waxa ay kala tageen anigoo aad u da'yar muddo dheerna maan arkin aabbahay oo nolol kale ayuu samaystay in badan ayaanan isku dayay inaan la xidhiidho aabbahay si cadho uu hooyaday u qabo awgeed ayuu diiday xidhiidhkayga kolkaa wixii uu waalidnimo xaq iigu lahaa miyay iga dhacayaan maadaama uu isagii ijaray oo uu diidan yahay inaan markaa ama la kulmo ama u tago su-aasha ku xigta waxa uu leeyahay sheekh waxaan dhowr jeer isqabannay qaar ka mida qoyskayga aniguna waxaan ku dhaartay inaan gooyo oo aanan dib ula hadlin ama aanan dib ugu tegin oo aanan mar dambe la kulmin haddana waa qoyskaygii oo anigoo iskaga dhex jira ayuun baan is arkaa dhaartaydaa qaraabogoyska ah miyaa kafaara gud laygu leeyahay su-aasha afraad waxa uu leeyahay qofka soo qoray sheekh waxaan ku noolahay dalka ingiriiska waxaanaan ka shaqeeyaa meel digaagga lagu qalo digaaggaasna marka la qalayo bisinka looma qabto
noocyada kale ee mayeedhaanka ah sida lo'da oo kalena mararka qaar rasaas ayaaba lagu dhuftaa marka la gowracayo kolkaas sheekh muxuu noqonayaa xukunka lacagta aan meeshaas ka qaadanayaa su-aasha ugu dambaysa waxa uu leeyahay walaalka soo qoray sheekh anigoo yar ayaa waxaanu islaynay qof waxaanu iga riday ilig waana la iga xaqay oo iligii waxa aan qaatay magtiisii muddo kadibna iligii ayaa ii soo baxay lacagtii miyaan iska celinaya بسم الله كتابك قرآن كا حلاي موبايلك هدي كتابك أنت ولا قصة صار لقى إيه يسدن كتابك وكله وكتاب كيون كتاب كيو إلكتروني قوي ساد رادة وتينو كسر جوابني سؤال شيء تنكوريس سدي كتابك تابشدي سي آخرين تيسو أي كاجا حرانا هيدو بيلامت haddii aabbahaa su-aasha labaad haddii aabbahaa uu diiday inuu kula kulmo ama ku gooyey adigu ma goynaysid midkiinba waajib baa u yaalla marka hadduu waajibkiisa gabo adigu kaaga gabi maysid waajibku waxaa ubadkiisa inuu rabeeyo oo xidhiidhiyo oo wanaajiyo oo ori ay isdiideen aanu ubadka uga tegin marka hadduu kaalintiisaa qaadan waaye adigu xumaan lagama horgeeye waajibkaagii qaado ahaa waalidka inaad xidhiidhiso oo aad u samafasho hadduu ku gooyeyna xaqiisu kuma dhacayo gooynta adiga uu ku gooyey labadiina xaq baa kala weyn kaaguna waa ku walad xaqiisuna waa kii waalidka dadkan aad ka dhaaratay su-aasha saddexaad waxay dadkan aan ka dhaartay qaraabada ah in haddana ku dhex jiro asalkeedaba waxaa lagu dhaartaa wixii xalaala qofku hadduu shay xaaraana nadar ku galo ama ka dhaarto waa inuu kafaara gud bixiyaa wixii xaaraanta ahaana ma samaynayo wixii waajibka ahaa ee uu ka tegey ee uu yidhi inaanan hebel la hadal ayaa intaa iga wallaahi oo u dhaartay kafaara gud buu bixinayaa dhaartiisii kafaara gud buu ka bixinayaa qofkiina wuu la hadlayaa waajib kastoo qofku uu ka dhaarto wuu samaynayaa kafaara guddan wuu samaynayaa xaaraan kastoo uu ku dhaartana samayn maayo kafaara gudkiina waa la imanayaa su-aasha ahayd gowrac meel digaag iyo xoolo lagu gowraco ayaan joogaayo gowracaasina waa dabxun hayru sharciy gowrac aan sharci ahayn waxaynu ku xawilaynaa goobtaad joogto culimaad joogta markaa culimadaasaad la kaashanaysaa bal gowracani noocuu yahay inuu gowrac saxa yahay iyo in kale iyo waayo iyagu si life oo toosa bay u arki karayaan ingiriiskana dee culimadu way wada joogaan marka iyagaan ayaan rajaynaya inay kula qiimeeyaan meelaha qaarkood dad muslimiina baa loo yeedhaayoo gowraca wax ka wadwada inkastuu yaro silan yahay oo bisinka u qabta meelna waa meelaan gowracna la taabsiinin bisinna lahayn tafaasiishaasaa ku jirta marka nooca ay tahay culimadaasaan kugu xawili lahaa bal inaad ula tagto su-aasha u dambaysay ahayd ilig baa la ii xaqay waa iligii had iyo jeer intaa waxaa laga yaabaa kii isagoon dhicin oo ilkii dambe aan ahayn ayaa laga ridaa laga yaabaa mar hadduu soo baxayaba waanay dhacdaa ilig kii labaad isagoo ah marka la rido haddana soo baxa oo dee fadli ilaahay uu qofka siiye una almuhim iligii lagu xaqay hadduu kuu soo baxay magtii baad celinaysa oo waxaa halkaa ka muuqata inaanu bi'ine uu kuu fayoobaa markaa waad iska celinaysaa qof kastoo wax loo xaqo oo wixii dib ugu hagaagaan wuu iska celinaya maalan gacantana qofkii naafo noqotay naafanimadii baa loogu xaqay markaa si caadi u noqotay dee ha iska celiya xoolihii wallahu aclam kulankan kale ku xiga oo berriya insha allahu tacaala ayaynu kulmi doonaa ciddii su-aal qabtaa ee masaajidka waxaan ka codsan lahayn inay hore usoo gudbiyaan intaanna gaadhin wakhtiga taraawiixda si aynu hore su-aalaha runtii ugu sii kala shaandhayn karno oo u diyaarin karno aad iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب